وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رمضان كريم. قدومية محكمة الصلاة وسيفده ميرك مقالة يبرا سابقة أمان شنانة مسؤولين تكلاك صغير شيء مناسبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي baa mahad leh marka hore. Waxaan kaloo mahadnaqayaa wasaaradaha isugu tegay in aynu maanta halkan isugu nimaadno oo la daahfuro siyaasadda iyo manhajka waxbarashada ee xabsiyada Somaliland oo kala wasaaradda cadaaladda, wasaaradda waxbarashada, wasaaradda diinta iyo awqaafta. cid kastoo gacan ku siisayna waan mahadnaqaynaa. daafurku maanta wuxuu astaan u yahay siday xukuumadda uga go-an tahay ilaalinta xuquuqda aadanaha, dib u habeynta xabsiyada, fududeynta dhaqan celinta maxaabiista. sida la sheegay waana markii ugu horreysay ee la hirgelinayo nidaam waxbarasho oo habaysan oo ka dhex jira xabsiyada Somaliland, taasoo hubinaysa in maxaabiistu helaan fursado waxbarasho oo awood u siinaya inay noqdaan dad shaqaysan kara marka ay xabsiga soo dhammaystaan. ujeeddada manhajka wuxuu maxaabiista siinayaa fursad ay ku horumariyaan aqoontooda, xirfadahooda, taasoo gacan ka siin karta inay si wanaagsan u dhex galaan bulshada markay soo dhammaystaan xabsiga. manhajku waxa uu diiradda saaraya aqoonta aasaasiga ah in muwaadinka maxbuuskaa la baro aqoonta aasaasiga, wax qorista, wax akhriska, qoraalka, xisaabta. waxaa kaloo fursad siinaya maadaama aynu dad islaama nahay inuu diinta barto oo aan is leeyahay wax badan bay ka bedeli kartaa hadhowto noloshiisa. wuxuu helayaa maxbuusku inuu barto xirfadaha gacanta, hadday dawaarka tahay, cunto karinta, ganacsiga yaryar, faaradda iyo xirfadaha kaleba. waxa uu maxbuusku baran doonaa anshaxa wanaagsan, dhiirigelinta hufnaanta, anshaxa wada noolaanshaha bulshada iyo wadaniyadda. hindisahan waxau salka ku hayaa mabaadi'da dib u habeynta cadaaladda Somaliland iyo ka hortagga dembiyada, taasoo hubinaysa in maxaabiistu helaan aqoon, xirfad iyo faham anshaxa suuban oo u sahlaya inay dib ugu biiraan bulshada marka ay ka soo baxaan xabsiyada. manhajka siyaasadda waxbarashada xabsiyada waxa uu diiradda saarayaa arrimahan: dhaqan celinta maxaabiista, xuquuqda aadanaha. helitaanka waxbarashadu waa xuquuq aasaasi ah, marka inuu waxbarto maxbuusku waxay ka mid tahay xuquuqda aadanaha. horumarinta xirfadaha iyo helidda fursado shaqo si hadhow markuu soo baxo maxbuusku u baro oo shaqo u helo, mujtamaciina uga mid noqdo. waxa uu soo bartay waxay fursad u siinayaan inuu shaqaysan karo isagoo xirfad leh. yaraynta dembiyada. inta badan maxaabiista ka soo baxda jeelasha badankooda dub bay ugu noqdaan. marka hadduu isagoo aqoon bartay oo diin bartay oo anshax bartay oo wadaniyad bartay soo noqdo, waxay yaraynaysaa soo noqnoqoshadii dembiyada ama dembiyada si guudba. waxaa maanta fursad u ah Somaliland inaynu daahfuro siyaasadda iyo manhajka waxbarasho ee xabsiyada Somaliland. waana tallaabo muhiim ah oo lagu horumarinayo nidaamka cadaaladda oo diiradda saaraya dib habeynta xabsiyada iyo dhaqan celinta. Somaliland ha noolaato. Ramadan Kariim.